بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال إذا لهانتين با كسو دوادا برنامجكي تضباطكي أفريكا oo toddobaadkan aan ku wareysanayno qunsulka Soomaaliya oo fadhiya dalka Koonfur Afrika ahna sihayaha safaaradda Soomaaliya mudane Maxamed Cali Mire Nabadoon oo aan xafiiskiisa maanta kula kulanay isla markaana aan la yeelanay barnaamij ku saabsan safaaradda iyo waxqabadkeeda. mudane ku soo dhawow marka hore ku soo dhawow barnaamijka iyo TV-ga caalamiga Home Cable. waa maasanta xaskaafi adiga iyo bahda Home Cable iyo dhamaan saxaafadda Soomaaliyeed aad iyo aad baa maasantiin albaabka safaaradduna mar walba waa idin furan yahay aad baa maasantahay waa tahay mudane Nabadoon waxa tahay qunsulka Soomaaliya oo fadhiya dalkani Koonfur Afrika isla markaana ah sihayaha safaaradda Soomaaliya waa xil aad u culays badan oo runtii miisaaniyadiisa aan halkan lagu soo koobi karin bal waxaad faahfaahin inaga siisaa safaaradda iyo waxqabadkeeda iyo marxaladihii kala duwanaa ay soo martay tani iyo goortii uu geeriyooday safiirkii Soomaaliya loo soo magacaawday dalkani Koonfur Afrika. bismillaahir rahmaanir rahiim. حسن هذه أدبا وما سنتهاي واحد مهدا سؤال حلك شيء سؤال لفتي هذا كعرس أم هلا عرس سفارته وحي كمتها هذه الدولة الصومالية هذا ما أنت تشره قريبت هذا سو أفريقيا أنت كجوكته وشقو هذا عرس صوته سطح ميلاد مركز لقفيريو عرسي هذا فربضن باكره مدوامد dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo dawladda Soomaaliyeed ah dawlad curdan ah dhibaatooyin badan ay haystaan day noqoto dhanka dhaqaalaha day noqoto dhanka arrimaha bulshada ammaanka in laga gado adduunka iyo dawladaha kale iyo dawladaha aan la joogna hadda Southern Africa oo kale dawladdaas waa arrin culeyskeeda leh culeyska labaad wuxuu yahay arrimaha bulshada oo dad Soomaaliyeed fara badan baa halkan jooga dad u soo diyaar garoobay oo qorshe ay ka fakareen ku yimid ma ahan waa dad iska yimid xooti ku ah meeshii arinta saddexaad dadkaasna waa lambarkoodu waa badan yahay arinta saddexaad oo culays kale ayaduna waxay tahay in xaaladda ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga marka laga fiiriyo dhanka nabadgelyada saddexdaas dhinac markaan ka fiirino waa hawl culus safaaradduna ay dhextaal ka tahay waxqabadka safaaradda wuxuu ku xiran yahay hadba wixii markaas taagan marka laga reebo waxyaalaha principalka ah oo safaaradaha loogu talagalay oo ah matalida dalkooda promotion inay ku sameeyaan ama horumariyaan magaca wadankooda abuuridda cilaaqaad cusub waxyaalaha basic ah marka laga reebo oo safaaradooda dhan wada qabtaan anaga Soomaali hadaan waxa noo dheer culayska dadkaas tirada badan oo Soomaalida oo meeshan jooga oo qaab aan habaysnayn ku yimid meesha dad dhalinyaro u badan aan dawlad soo arkin ay ku adag tahay sidii ay mucaamil ula sameyn lahaayeen dadka la degan yihiin barashadii luqadda matalidii dhaqanka soo hagidii iyo dhexgalidii dadka ay la nool yihiin u hoggaansamidii sharciga wadanka u hoggaansamidii sharciga safaaradda taas waa culays aad u weyn oo safaaraddu ay door lixaad ka ciyaarto culayska kale wuxuu yahay ilaalinta sharaftooda iyo dhiigooda iyo maalkooda dadkaas oo ayaduna ah mid aad taf u ah oo culays weyn ugu haya tan iyo markii safaaraddu timid safaaraddu waxay jirtaa hadda 14 bilood 14kaas bilood waxaan xaqiijinay dadkuna xaqiijiyeen tirada dadka Soomaalida oo ku dhintay South Africa inuu yaraaday sababtaas ma hadda koowaad Ilaahay baa leh ma hadda labaad waxa iska leh dadka Soomaaliyeed oo baraarugay qayb ka mid ah mahadaasna waxa iska leh safaaradda oo u guntuntay wacyigelinta dadka sidii uu qofka Soomaaliga ugu fakari lahaa lambar 1 inuu naftiisa badbaadiyo aysan noqon inuu lacag kaliya sameeyo inuu qofku ka fiirsado meelaha uu lacag ka sameeynayo inuu ka fiirsado oo ku fakaro inay muhiim tahay midnimada dadka Soomaalida intii haba isku bugcad ku nool in ayagu iska warqabaan isla shaqeeyaan iskaashadaan inay safaaradda wixii dhiba oo soo gaara ay soo wacaan tusaalaan xalay laba nin baa la dilay adoo qofkii soo wacay meeshaan isugu tagnay meedkii baan waayaan tagnay dadkii baan soo gubaabinay booliiskii baan la hadalnay dawladda South Africa aan bushkareynay dadkana waxaan ku gubaabinay kiiskaas in la daba galo in maxkamad la furo in loo bareero in tuuga wax dilay lagu marqaati furo ee aan la baqin marka 14 bilood aan joognay waxaan aragnaa dhimashada dadka Soomaalida inay yaraatay marka loo barbar dhigo xilliyadii hore waa tahay mudane Nabadoone sida aan ognahay dadkani sida horeba u sheegtay dawladnimo Soomaaliya aysan arag dalkan waxay soo galeen ayagoo iska socda
xilligii safaaradda la furay iyo hadda inta ka dhaxle dadku cilaaqaad intee leeg ayay safaaradda la leeyihiin haddii ay dhibaatooyin ku dhacaan ma idin soo wacaan xiriir intee leeg ayaad la leedahay dadka aad matasho ee Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan Koonfur Afrika waa maasanta Xasan xiriirkaas waxaan u kala qaadaynaa labo dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga ama imaada labaan anagu kala qaadna labo mid koobaad waxay tahay waa qof Soomaaliya oo raba danu ka soo gashay safaaradda waxay doontaa aad oo ama telefoon ku soo waca ama email ku soo waca ama ayaga uu noo imaada oo raba baahi uu qabo in laga jawaabo waa groupka labaad waxay yihiin waa qof Soomaaliyeed oo wadanka ku nool oo xilligaas baahi gaar ah ama degdeg uu safaaradda u qabo aysan jirin xiriirka koobaad waxaan la leenahay waa muwaadinka Soomaaliga ah ee baahida qabo nala soo xiriira ama noo imaada ama telefoon ugu la soo xiriira baahidaas waxay doontaa ahaato xiriirka labaadna waa dadka bulshada wax ka dhax ah ee barnaamijyada la yiraahdo organisationada u dhaqaaqa arrimaha bulshada odayaasha cuqaasha dadka mutacalimiinta ah oo intellectualska ah dadka ku dhex jira ee culimada haweenka marka xiriirka iyagu dadkoo dhan yani xiriir baa naga wada dhaxeeya waa isku qasbanahay waa u baahannahay waa dadka iyagu dadkan u shaqeynayay laakiin xiriirka ugu horeeyo degdega waa midka maalinlaha oo shaqada la xiriira kan labaadna waa dadka selective-ka oo barnaamijyada oo dadka u dhaqaaqa ama wax ka dhax ah waa tahay mudane waxaan ognahay dalkan Koonfur Afrika inuu kamid yahay wadamada farakutiriska ah oo dawladda dhexe ee Soomaaliya aysan wax safaarada aysan abad ku yeelan haddana la yagleelay sida aad sheegtayba 14 bilood ka hor safaaradan xiriirka wadankan iyo xiriirka wadankeena sidee buu yahay wax se la taabo karo oo labada dal ah oo isku soo jiid ah oo aad sameysay oo iminka noo sheegi karta ma jirtaa waa maasan tahay masalada horta ah xiriirka labada dal waxaan rabaa inaan qiro oo aan cadeeyo in dawladda South Africa iyo dawladda Soomaaliya xiriirka ka dhaxay uu yahay xiriir aad iyo aad u wanaagsan waa xiriir aan bilaaban xilli safaarad la furay aan ku xirnayn waa xiriir taariikhi ah waa xiriir jiray intii ay jirtay dawladda Soomaaliya sigistigi xornimada markii la qaatay dawladda Soomaaliya waxay kamid ahayd dadkii abuuray xisbigii ururkii la oran jiray ee African Union ururkii midnimada Afrika oo hadda EU-ga loo bedelay dawladda Soomaaliya waxay kamid ahayd xubnihii waxay laga bilaabo xilligaas waxay dawladdeedii dadkii matali jiray Soomaalida ahaa ay goob walba ka sheegi jireen sida ay uga xun yihiin dhibaatada haysata dadyowga la gumaysto ee madow meel walba ku nool xitaa Afrika kuma xirnayn Latin America kuwa jooga xitaa waa u doodi jireen laga bilaabo xilligaas dadkii aasayaasha u ahaa ama lafdhabarka u ahaa the modern South African government ama South African nation waxa meel ugu qornayd sida dawladihii Soomaaliyeed ay uga go'nayd in dadka madow ee adduunka ku nool ay xornimadooda helaan sidaas awgeed qof kasta oo dawladdan wax ka ah ama mutacallin ah ama talada wadanka wax ku leh wuxuu taariikhiyan u og yahay doorka ummadda Soomaaliyeed ka soo qaadatay in la helo xornimada maanta ay haystaan sidaas awgeed horta xiriirka dawladda Soomaaliya iyo dawladda South Africa ma aha wax safaaradan bilowday ama aan waan bilaabay waa taas sharaftii ay noo hayeen iyo walaaltinimadii noo hayeen nasiib darro xilli anagu aan burburnay ayagu goolkoodii gaareen laakiin xiriirku si uu u socdo lama aysa sugin oo kaliya intii hay'ado dawladeed oo ay la mucaamilaan ay ka imaanayaan maxabadii iyo walaaltinimadii waxay ku bedeleen dadweynaha Soomaaliyeed inay caawiyaan yani 50 kun oo Soomaaliya joogta liida 50kaas kun dad aad u fara badan waa ajnabi magac Soomaali isku dhiibay waxay ku heleen waa sharaftii ay dawladda South Africa u haysay dadka Soomaaliyeed in la caawiyo abaar badan bay dadkana soo dhaafiyeen sharciyo badan bay siiyeen nabadgelyo ku heleen dhaqaale ku sameeyeen waxa South Africa lagu tiriyaa Soomaalida joogta inay yihiin dadka ugu lacag diridda badan waa wanaag ay dawladda South Africa noo sameysay ayadoo daba joogta xiriirkaas taariikhiga ah safaaradan furitaankeedii aad iyo aad bay dawladda South Africa u fududeysay ugana qayb qaadatay waana ku mahadsanyihiin annaga xiriirka dawladuhu waxay ku dabaqaan sida loo wada shaqeeyo 24 saac albaabada dawladda South Africa waa noo furan yahay sharaf weyn bay noo hayaan wanaag bay noo hayaan wixii aan ula tagno uga baahanahay miiskay noo saarayeen dawladda Soomaaliya sidoo kale ilaa intii aan nimid waxyaalo badan baa la qabtay tusaale ahaan waxa kamid ah 3,000 oo qof oo muwaadiniin Soomaali oo rabay wadankooda inay ku laabtaan qashqashaad la'aan wanaag nabadgelyo ku laabteen processkaas laabashada dadka wadankooda ku laabanayeen ilaa hadda waa socdaa waa hawl ay safaaradda dawladda South Africa isla sameeyeen oo kamid ah cilaaqaadka dawladnimo waxa kamid ah 25 diblomaasiyo Soomaaliya halkan la keenay oo dawladda South Africa ay from A to C lahayd
maalgelintooda tayeyntooda dhaqasho si loo kabo capacity building Somali the new Somali government institutions marka cilaaqaadkaas waa socdaa waftiyo badan oo dhowr ah ilaa 4 ah oo South African oo xamar tagay baa jira waxay furan doonaan safaaradoodii oo hadda safiirba ay Soomaali ugu dirsadeen inkastoo uu Nairobi joogo mar dhowna hadduu Ilaahay ma inaan wax rajaynaynaa mustaqbalka ay safaarad ka furtaan xagga يعني xiriirka labada wadan aad iyo aad buu fiicaya markaan soo koro waa tahay mudane nabadoone waxaad ka dhawaajisay in aad halkan u joogtiin in aad difaacdaan dhiiga iyo hantida Soomaalida ku nool dalkan Koonfur Afrika sidii hore baad u sheegtay dilalku way yaraadeen laakiin wali way sii socdaan sidiiba aan habeen dhaweytan u wada joognayba ma jirtaa cid dawladda ay Koonfur Afrika kamid ah oo aad kala fariisateen arrimahan oo aad isla soo qaabaan dhigteen amaba aad hesheen cadaymo ku aadan dadka ka dambeeya dilkan iyo in dawladdu Koonfur Afrika ay jawaab rasmi ah oo ka bixisay ama magdhow amaba xoolihii la dhacay oo inta badan aan ognahay xoolaha mar walba waa la dhaca in ay dib u soo celiyaan arrin caynkaas qola aad kala xajooteen oo dawladda Koonfur Afrika oo noo sheegi karto ma jirtaa waa sheegi karnaa waa jiraan laakiin waxay leeyihiin heerar kala gedisan salahan September waxaa ka dhacay Eastern Cape waxaa ka dhacay magaalada Port Elizabeth iyo agaarkeeda 10 tuulo agaarkeeda bob far badan kaasoo ka bilaabay nin Soomaali oo dilay muwaadin South African xaggan tagnay anagoo tiimka safaaraddu xaggay tageen waxaan la kulanay taliye ku-xigeenka gobolka Eastern Cape waxaan la kulanay 10 magaalo wax ka dhaceen taliyaasha saldhigga booliiska waxaan isla gaarnay heer la dhaho frontier-rada laga qaatay dukaamada Soomaalida in 10kaas magaalo laga raadiyo qofkii muwaadin gurigiisa la galo hadii frontier lagu arko frontier-da weyn ganacsiga in la weydiiyo la dhaho aaway rasiidka ku gadatay haddii uu receipt tusi waayo qofkaasu frontier-kaas in la qaado oo saldhigga booliiska la geeyo taas waa qodob marka waxay ku xiran tahay yani waa heer gobol marka hadda ka hadalno waxaan la kulanay xilligaas maayirka Port Elizabeth waxay dawladdu ka xuntahay oo ka tacsiinaysaa waxa dhacaya laakiin adiga laftiga waad ogtahay South Africa waa joogtaa markii tuulo korontadu ka go'do dadku waa iyaga mudaharaad sameeyo waxay ugu yeeraan toy mudaharaadkaas ay sameynayaan waxay beegsadaan oo kow ah ajnabiga dukaamada meelahaas ku leh horta problemku ma aha problem Soomaalida kaliya ku wajahan waa nala qaba taas waa mid problemkaas ayaga ah ma aha problem ay dawladda South Africa sameysay ama sameyso oo saameyn ku leh shaqul kuma laha waana ka xunta saa uga xunta laakiin waxa jira tuuga aan la control karin waa tahay gudoomiye nabadoone waxaad sheegtay in aad la kulanteen dad ka tirsan dalkan Koonfur Afrika oo mas'uuliyiin sarsare ah oo aad kala xajooteen dhibka dhacay in waan ognahay dawladda Koonfur Afrika inaysan dhibaatada dadka ajaanibta aysan ku faraxsanayn oo dadkan ayada ay magangeliya siiyeen isla markaana ay businesskooda ka dhigeen mid maaragtay free ah oo meesha rabay ka ganacsan karaan haddana waxaa jira dad ku dhaxnool oo dhibaateeyo oo la mid ah dambiilayaasha caalamka wax ka sameeya ma jirtaa cid aad hesheen oo ka dambeysay dil muwaadin Soomaaliyeed oo dhiigiisa meel lagu sheegay ilaa iminka waa badan yihiin tusaale waxa la meed kaas la sii wada u dambeeyay 4 week hor inta aad waad soo ku maqneen magaalada Cape Town waxa la keenay maxkamad dad laayay dad Soomaaliya maxkamadaas waxa la xukumay dhowr qof oo mid lagu xukumay 35 sano mid lagu xukumay 25 sano oo mid lagu xukumay 15 sano dadkaas waxay ahaayeen dad dilay ilaa 9 qof ka badan Soomaaliya laakiin waxa hawshaas ka shaqeeyay oo u istaagay muwaadiniin Soomaaliyeed oo tuugadaas daba galay farqiga u dhaxeeya tuugadaas iyo tuugooyinka kale waxay tahay waxa ka soo qaadaa 2 qof oo walaalaha oo dukaan joogta in inta loo imaado mid la dilo waxa ka soo qaadaa kanool inuu yaqaan tuugi wax dilay boolisku markuu imaado qofkii Soomaaliga ah oo noolaa oo walaalkiis la dilay waxa la rabaa inuu kiis furo kow waxa la rabaa inuu safaaradda la soo xiriiro waxa la rabaa inuu lawyer la qabto waxa la rabaa tuugaas wax dilay in markii booliska lagu saacido si lagu helaa waxa la rabaa boolisku maalintii ay soo qabtaan maxkamadda la keeno ninkii Soomaaliga ahaa ee maalintii dilku dhacayay taagay inuu inta ku marqaat furo sidaas awgeed baa sharcigu wax ku qaban karaa waxaan haynaa kiisas ka badan dhowr iyo 10 oo boolisku ay soo qabteen muwaadinkii South Africaanka ahaa ama Malaawiyaanka ee dilay dhibka geystay laakiin marqaatigii uu diiday inuu furo waxaan haynaa halkan inay igu imaadeen muwaadiniin South African oo booliis ah oo leeyihiin please laba mar oo hore qofka Soomaaliga gooyay in adeerkiisa la dilay waa la hadalnay wuxuuna yiri mana imaanayo mana intersaaraynayo kiiskaas mana sii wadaayo farahana la iga qaad asagii baan wacnay wuxuu noogu jawaabay anagu ilmaan korsadaa in la dilo ma rabo
marka macnaheedu waxa weeye hawsha haddaan u wada istaagno oo annaguna safaarad ahaan u istaagno meediyaduna u istaagto muwaadiniinta Soomaaliyeedna ay ogaadaan in tuuga nooca kaliya loola dagaali karo ay noqoto in sharciga lala tigsado waxaad baa laga keeni karaa waa tahay mudane safiirkii Soomaaliya loo soo magacaabay wuxuu dhintay bishii July 2013 waa muddo ku dhow hal sano safaaraduna waxay shaqeysaa safiir la'aan oo labadaas xil adiga ayaa isku wada waa mid aad culeyskeeda u leh dawladda Soomaaliya maxay ku weysay inay safiir u soo magacaabo dalka horta taas dawladda la weydiinayaa waa gartay bal adiga waxa warar hoos ayaa sheegaya in aad u taagan tahay qabashada xilka safiirnimo arrintaas maxaad ka leedahay ma waa iska warar hoos hadii lagu warar hoos macnaheedu waa ku turkuteen waxa kuma jiraan waa tahay haddii aan usoo noqono dhismahan aadka u quruxda badan ee safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Koonfur Afrika xilligii la aasaasay Allah u naxariistay shariifka uu noolaa jaaliyadda Koonfur Afrika waxa ay sheegeen in ay safaaraddan lacagteeda ay bixi doonaan haddii ay shakhsiyaad ahaa lahayn haddii jaaliyad ahaa lahayn arrimahaas waxay ku dambeeyeen xaqiiqiyan jaaliyadda waa dad aad u fiican waa dad Soomaaliyeed dad badan oo sharaf badan baa ku jira laakiin ayaga laftigooda culays iska haysta dhaqankeena waxa kamid ah inay mar walba iskhilaafaan qofku waxa uu dhaho iyo waxa uu sameeyo ama waxa uu sameeyo iyo waxa uu dhaho jaaliyaddu dabcan waa jaaliyadeedii waan rajaynaynaa inay fi mustaqbal ay hawshaas ka dhabeeyaan codsigaas anaguna u geynay ayaguna waa naga aqbaleen laakiin wali waxa ma hayno waxaan rajaynaynaa gurigan waa ijaar baan ugu jirnaa hadda waxaan ilaahay ka baryaynaa inta yare halkan aan joogno inaan gadano oo yeelano maxaa dhaw waa ku asturanahay يعني قيمها oo dadka Soomaaliyeed ugu fadhiyo waxa garan kara qofkii imaada waa hanti ma guurtaa oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay inuu noqdaan rajaynayna dadaala jira laakiin wali wax aad ma hayno laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hirgeliyo in uu noqdo dhismahan dhismo ummadda Soomaaliyeed ay yeelato laguna difaaco danaha mustaqbalka ciyaalka halkan ku dhalan doona duu Ilaahay waa tahay dhismahan waan ognahay qiimaha uu ku fadhiyo ama kira ahaan oo yahay iyo shaqada ka socota safaaradda inay aad u yar tahay dhanka financialka ama dhaqaalaha markii aan ka hadalno dawladda Soomaaliya wax dhaqaale ah oo ay ku bixisay safaaradda ma jirtaa dawladda horta laftigeeda waa inaad ogaataa dawladda canshuur qaata maahan ayada laftigeeda ayaa waxay u baahan tahay in horta la kabo oo wax la siiyo laakiin qorshayaasha dawladda waa ku jirtaa inay dado baahiyaha dhaqaale ee hay'adaheeda ama gudaha joogan ama dibadda sida anagu aan ognahay hadda dawladdu waxa karanaysa maahan laakiin wax meesha yaal baa iska yar muwaadiniintii Soomaaliyeed ee deganaa 18 gobol yani canshuur dawladda dhexe ma siiyaan dawlad ayadoo hadda warshado ay leedahay wax soo saar leh ma ahan international community donation-ka ay siisa 80% ayadoo dib ugu laabtaa ama wuxuu aadaa amisom ama wuxuu aadaa assessment wax lagu sameeyo lacag cadaan oo xataa dawladda loo keeno oo caawa xataa lagu eedayn karo oo anigu ogahay ma jirto marka niyo dawladda anaga hadda aad iyo aad uga walwalna haduu ilaahay madadaal fiican baa hadda socda badjadii wasaaradaha baarlamaanka hadda la yaalaan mar dhow la ansixinaya waxaan rajaynaynaa in teamkan cusub ay boorka ka jafi doonaan wax badan marka insha Allah qayb baan rajaynaynaa waa tahay hadii aan tagno dalkaasi Kenya maalmihii ugu dambeeyay muddo ka badan hal bil waxa ka socda raaf lagu qabanayo dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka hadii ay sharci lahaayeen hadii ay diblomaasiyiin yihiin hadii ay ganacsato tahay iyadoo loo kala abdiyeenin balka siyaasi ahaan sidaad u aragtaa arintaas ka socota Kenya arinta تعدي هرت قفك موادن كصومالية أما السياسي هو أما موادن هو حو تعدي اللوجي سنة قفك الصومالية أدون كميرو بكذا عضو قفك الصومالي وكذا كان عاد بان أوجحنا تاسوا ميت جنرال وحربنا dadka Soomaalida dib badan oo badan baa meel walba ku haysta Kenya hadda waa mid ka u dambeeya yani dadka in la raafayo lacag laga qaadayo qaarkood rag iyo dumar aan la kala saarayn Kasarani stadium ay ku waxaysan yihiin gabar uur loo 9 bilood in ayado booliska cararaysa dhowr bilood ay meel waxa soo dhan waxaan arkayno dabcan mas'uuliyiinta dawladda ee gobol halkaas jooga ama safaaradaha haato ama mas'uuliyiinta kale ayaa arintaas ka hadlay waxna ka yiri waxa laakiin aniga hadalka iiga banaan oo u jeedo wuxuu yahan filayaa haddaan Soomaalina inaan uga faa'iideysano arintaas war dhul dadow iyo wadan kale isku dhajintiisa iyo isku xanaajintiisu macna ma sameynaysa kan anagu aan leenahay sidii aan u samaysan lahayn oo ugu noolaan lahayn oo u maalgashan lahayn
oo ajnabiga ku jira aan uga tuuri lahayn inaan ka shaqeyno inaan wax ka baranno Kenya ciyaalkii ku dhashay baa hadda jaamacada dhamayn raba ciyaalkii ku dhashay wax dhal raba Soomaalida aha haddii lagu yiri iska bax waxta inta lagu qabto yani raasiya wax la dhaha jira adduunka raasiya waxa weeye waa dad gooni loo target gareysanayo haday halkaas marayso in Kenya la aflagaadeeyo iyo inaan isku dhajino macnama sameynayse waxa la rabaa intaan masayrno oo qeyroono inaan dhulkayga saan ku dhisan lahayn uguna laaban lahayn aan halkaas ka baranno ana waxaan qabaa inay taas message noo tahay haddaan dad maqlaayna waa tahay mudane nabadoone dawladda Kenya iyadoo raafkaas aadka u baan ka wada dalkeeda ayay haddana qunsul u magacaabatay magaalada Kismaayo oo kamid ah magaalooyinka dalka Soomaaliya sharciga miyuu farayaa in qunsul loo magacaabi karo magaalada Kismaayo oo kaleento wala horta kullay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arintaas maamusha ayada ayaa la weydiinayaa wixii arintan kiiskan specific waxa ku dhacay soo ku dhacay lama kama warhayo laakiin Kismaayo waa magaalo kamid ah Soomaaliya qunsulka Kismaayo ama Garowe imaanayaan waxa laga xukumaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya laakiin specific case procedure in la maray inaan la marin taas waa arin u baahan xogogaalnimo iyo in la weydiiyo yani mas'uuliyiinta laakiin in general terms Kismaayo waxay ku daabantaa Muqdisho laakiin wax xog ama ka haysa in qunsulkaas loo magacaabay in Kismaayo la socodsiiyay dawladda dhexe ee Soomaaliya ma wax xog kama haytaas waa tahay Soomaalida dalkan ku nool sidii hore baad u sheegtay waxa lagu qiyaasaa ilaa iyo 50,000 intooda badan ma lahan wax sharci ah safaaraduna waxa ay u istaagtay in arrimahaasi ay wax badan ka qabato wax dokumenti ah oo ilaa iminka aad safaaradda laga qaatayna ma ay jiraan goorma la filayaa in dokumentiga sharciga ah oo baasaboorka Soomaaliya ee safaaradda Koonfur Afrika ay bixiso anaga statistics aan hayno xogta aan hayno wuxuu yahay Soomaalida in 90% in ka badan ay dokumenti leeyihiin South Africa gudaheeda majority-ga dadka Soomaalida wadankan jooga in dawladda South Africa ay sharci siisay taas horta xogta aan South Africa ka ogaanay anaga sharciga la ka sugaayay wuxuu ahaa baasaboorka Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya anaga waxaan u hawlgalnay oo meel walba u tagnay in dawladda South Africa ay intiraafto waa la intiraaf waxa kaliya noogu dhima waxay tahay in hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ay imaadaan halkan waxaan u dirnay fiisayaashoodii oo Nairobi yaala 3 week waxaan ku balansanahay isku ogeyn inay imaadaan waana imaanayaan sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha haddii ay maanta imaadaan Brito waxa bilaami doona bixintiisa baasaboorka oo dadka muwaadiniintu ay uga faa'iideysan doonaan wax badan arintaas marka arin safaaradda hadda ku xiran ma ahan arin dawladda South Africa ku xiran ma ahan waa arin ku xiran hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo xataa fiisayaasheedii shakhsiyaadka aan u dirnay ayaga baan sugaynaa waa tahay waxaan ognahay dadkan Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika in ay 3 qolo u dhaxeeyaan sida UN-ka dawladda Koonfur Afrika oo magangeliya siisay iyo dawladda Soomaaliya xilliyada aad dadka aad dirtaan oo dalka Soomaaliya u dirtaan go home-ka aad siidaan dadku waxay sheegaan in dhibaatooyin badan ay maraan dhibaatooyinkaas intay ka jiraan ma safaaradda ka jiraan ma agensiyaasha ma qaramada midoobay iyo dawladda Koonfur Afrika bal dhibaatadaas maxaad ku macnay lahayd aniga fikriyan dhibaato halkaas ka jirto oo ogahay ma jirto waxa jira wax la yiraahdo erey bixinta marka la fiirinayo waxa jira problems iyo challenge marka challenge-gu waa carqalad imaanaya problem-kuna waa dhib jira carqaladahu waa shaqada wadata dhanka dawladda South Africa iyo dhanka UN-ta iyo dhanka safaaradda waxa ka jira wada shaqayn 3 geesooda oo project-kan ku saabsan sidii loogu fududeyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed hawshooda safarka ay ugu laabanayaan dalkoodii khibradda anigu aan leeyahay xoogaalnimada aan u hayo wuxuu yahay inuu yahay system taagan oo wada laga bilaabo iyo wada ku dhamaado leh way ma carqaladaha waxay ku xiran tahay case by case qofka qofba wuxuu imaanayaa xilli qaldan dadka waxa la diraa steps ay qaadaan baa jira xilli cayiman baa jira yani isniinta dadka la diraa talaada ma bixi kartid hadii procedure-ka sidii aan ku heshiinay macnaha maamulka marka qofka Soomaaliga wuxuu rabaa maalinka isniintu yimid isniintii inuu buxuu rabaa markii la dhoomaantay ma bixi kartid waa ka daahday groupkan laana adaa isniin yimid waa ina isniinta kala sugtaa wuxuu ku leeyahay ma sugi karo haddaad sugi karin procedure-ku waa saas marka anu waxaan ogahay inuu jiro challenge shaqada ku saabsan case by case shaqo ku leh
laakiin aysan jirin problem hawshaas ku saabsan oo saddex geesoodkaas iyo xiriirkaas ah ma jiro kaas. waa tahay haddii aan tagna magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socotay xilka qaadis gudoomiyaasha gobolka banaadir iyadoo markii u dambeysana loo magacaabay xasan maxamed xuseen muungaab wuxuuna isla markiiba uu ku dhaqaaqay in uu xilka ka qaado gudoomiyaashii gobolka degmooyinka gobolka banaadir si ammaanka loo adkeeyo arrintaasi ma is leedahay waxbay kusoo kordhinaysaa mar haddii safmar laga dhigay in xilka qaadista gudoomiyaasha ammaanka magaalada muqdisho inuu kasoo horeynayo xilligan arrintaas waa arrin horta u baahan inaan waqtigeeda la siiyo rajiim cusub inay ka fiicnaan doonaan kuwii hore iyo inay ka xumaan doonaan masale oo doros u baahan maahan waa madalo u baahan in la sugo kolley maamulka gobolka banaadir dad baa maamula mas-uuliyiin baa jooga wasaarad baa jirta wasiir baa jira yani ilaa iyo meesha u sarreysa isku xiran tahay waa in laga warsugo wixii ay dadkaas la imaadaan laakiin anagu inaan muwaadiniin haddaan nahay inaan u rajayno maxaa dhaca dantayada ku jirta ilaahay inuu dadkaas guusha waafajiyo horumar ay keenaan nabadgelyada la sugo dantayada ku jirta marka ayagana inaan sugno oo waqti siino annaguna aan u ducayno waa tahay aad baad u mahadsan tahay mudane sida wanaagsan ee aad nooga aqbashay in barnaamijkan nagala soo qayb gasho daawadayaal barnaamijkii toddobaadkii Afrika oo aad kala socoteen TV-ga caalamiga Home Cable isla markaana oo marti noogu ahaa qunsulka Soomaaliya u fadhiya dalkani Koonfur Afrika Maxamed Cali Mire Nabadoon ahna sihayaha safaaradda Soomaaliya intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka waxa aan la socodsiinayay anigoo Xasan Kaafi Maxamed Shiraa intaan kan mid lamid aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh